بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhamaan walaalaha qaaliga walaalihii horena ugu xirnaa iyo dhamaan walaalaha cusub ee hadda arki doono fiidiyogeena ugu horeey ama janalkeena maanta uun la kulmay. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay malaa'igta idin soo dhaweyso. Raxmaanka naxariistiisa iyo jannadiisa iyo adduunyo naciimkeeda iyo aakhiro jannaadkeeda ilaahay noogu bishaareeyay biidni raxmaan dhamaanteena kuwa ku kulmo jannatul firdaws la'ala allaha naga yeelo iyo rasuulka maciisa aan ku wada salino isku dhiirigelina saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima. insha Allah waxa rajayna dhamaanteena ku wada salisay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam una sii sheer garay intaad awoodaan qof 2 ilaa 3 ilaa 4 inta ka badin kartaa ka badiya insha Allah si aan ajarku wada qaybsan oo khayrku u wada faa'iideysana biidni raxmaan. walaalaha qaaliga ilaahay waxa rajaynaynaa qurbadeena iyo qurbada muslimiinta ilaahay inuu feedo farxad uu noogu bedelo murugadeena culeyskeena fudeed ilaahay inuu bedelo biidni raxmaan. inta aan qisaskeena u guda galin insha Allah waxaan jeclaystay inaan wax yar oo baraarujin ah oo istighfaarta xageeda aan isku sameeyay biidni raxmaan. mar walba waxaad aragteen inaan soo qaadano qisaska laga arkay istighfaarta waliba ayaga oo dadka ka sheekeynaya ay nooga sheekeynayaan yani fawaa'id aad iyo aad u fara badan ay ka heleen yani kheyraadka ay gaareen barakada iyo nicamka ay ku heleen istighfaarta ay nooga sheekeynayaan. marka waxaan jeclaystay in yani istighfaarta qofka haduu la imaado maxuu ka faa'iidayaa horta qisooyin mar walba waa ka sheekeynay balse ayada oo yani isbaraarujina ayaan jeclaystay qisaska way noo dambeynayaan in yar inaan isbaraarujino. qofka maxay tahay markuu akhrinayo horta istighfaar muxuu ka faa'iidayaa istighfaarta waxay tahay waa yani waxay qofka mu'minka ee gaarsiisaa ama ay ku xariirisaa jannada iyo fooskeeda iyo barwaaqada laga helo jannada ayay yani ku xariirinaysaa oo qofku waxay u fududeynaysaa wadadii jannada. istighfaarta waxa kaleento oo yani ay ku sahlaysaa daacadka iyo in ilaahay aad u cibaadeysato waxa ay ka reebaysaa oo ka dheereynaysaa waa dunuubta. yani maxaa kaloo laga faa'iidi karaa qofku markuu istighfaarsado wuxuu ka faa'iidi karaa aqligii qofka bini'aadanka inuu kordho waxa kaloo ka faa'iidaya qofka bini'aadanka iimaan iyo xikmad aad iyo aad u fara badan. qofku mar walba intuu istighfaartiisa badato waxyaabaha laqwiga iska hadalka maalayacniga uu ka dheeraanayaa qof wuxuu noqonayaa iimaankiisa uu buuxo ilaahay aad iyo aad ugu dhow yani aqli ahaan iyo xikmad ahaanba aad ayuu u kobcayaa qofka. yani waxa kaleento oo istighfaarta laga helaya waxay tahay in ay ka yareynayso in aad qalbigaagu uu ku xirnaado mar walba inta adduunyadan dhamaanayso qalbigaagu uu ka gudbaya in adduunyadan yani xaaladaheeda iyo wax yar dhalaalka yar oo adduunyada kor saaran yani aqligaaga iyo fahamkaaga uu ka weynaanayo fahamkaaga iyo aqligaaga wuxuu gaarayaa in adduunyadan tahay waqti yar oo kooban ay tahay aakhirada inta badan oo biri ku dambeyn doonto ay tahay marka mar walba waxa ka fikiraysaa si aakhiradaada kuugu qurxanaan lahayd. waxaa kaleento oo yani istighfaarta ee qofka bini'aadanka ee markuu badiyo u sameynaysaa culeysyada iyo arrimaha mashaakilaadka ka hor imaanayo niyad jabyada murugooyinka ayay ka dulqaadaa. istighfaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aad badiso wuxuu kaaga dulqaadayaa hamigaaga xasanka iyo murugada cariiriga qalbi ahaan qalbadaadana wuxuu ilaahay ku bedelayaa farxad furfurnaan yani inaad qalbiga taajir ka tahay mar walbeento. waxa kaleento yani istighfaarta marka aan badino oo ilaahay nagu siinaya in uu gargaar iyo gurmad ilaahay noo noqdo murugada iyo culeyska iyo waxa aan dareemeynana oo ilaahay naga dulqaado. waxa kaleento istighfaarta lagu helaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala faqriga iyo culeyska adduun uu kaaga dulqaado. faa'iidada istighfaarta waxaa kamid ah in irsaaqada ilaahay kugu barakeeyo oo wadooyinkii iyo jidadkii aad u mari lahayd oo ilaahay kuu sahlo. istighfaarta waxa ay kaleento ay qabataa in ay dunuubti oo dhan ka masaxdo oo ka baabi'iso markastoo istighfaarsato dunuubtaada ayuu ilaahay kugu dhaafayaa. waxaadna ku helaysaa istighfaarta jaceylka iyo wanaagga ilaahay.
waxaa kaleento oo mar walbeento ay ku xaqiijinaysaa in ilaahay xaggiisa aad u dhawaato oo aad dareento mar walbeento xalaawatul iimaan iimaanka macaanidiisa inaad dareento ayayna ka qayb qaadanaysaa in istikfaartaada marka ay badato waxaa yacni kordhaya inaad dareento macaanka iimaanka. waxaa u daliil ah qur-aanka ilaahay oo aayadihiisa uu ku leeyahay istikfaarta asaga oo kaga hadlaayo فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وحا ونوو بلنقاضية أما نوو تصيا مركان استغفارت الإيمان إن إلهي نو دنبي دافايو روبك نو سودايو maxay ahayd awlaad nagu siinaayo maal nagu siinaayo ilaahay beerihii noogu soo baxayaan wabiyadii noogu soo burqanayaan. muhiimada warkeena oo kooban istikfaarta waxa ay ku siinaysaa waa dambi dhaaf darajooyinka oo ku kordho khayrka iyo wanaagga oo u dhawaato alla ka cabsigaaga oo bato iimaankaaga quwo yacni adduunyada oo macaanideeda iyo dhadhalaalkeeda agtaada wax weyn aan ka noqonin aakhiro iyo biri oo agtaada aad iyo aad ku murug gelinayso ku walwal gelinayso ka fikirkeeda. waxa kaleeto oo ku siinaysaa inaad istikfaarsato macaanka iimaanka inaad dareento. waxa kaleeto ilaahay ugu siinayaa marka aad istikfaarsato culayska iyo kurbooyinka adduun inuu kaa dulqaado haddii xag maal ahayd haddii awlaad ahayd haddii guur ahayd wax kasta oo culays adduunyada xaggeeda ka haystane ilaahay wuu kaa dulqaadayaa biidni raxmaan. اللهم اجعلنا من المستغفرين. daba intaasi waxay ahayd hordhac iyo isxasuusin yar oo aan isxasuusinayno istikfaarta iyo faa'iidooyinka aan ku gaari karno iyo wax aan ka faa'iideyno mar walba waataan isndhaano istikfaarta aan badino qisaskaasaa laga arkay bal waxay ahayd isxasuusin yar iyo faa'iidooyinka laga dhaxli karo qofku markuu istikfaarsado oo ka dhaxli karo. haddaba aan u gudagalna qisaskeena maanta. qisada ugu horeysa waxaa ka sheekeynaya wiil waxa uu leeyahay waxaan ahaa qof aad iyo aad macsiyada iyo xumaanta aad ugu yacni tacalluqo oo aad u sameeya ayaan ahaa. ilaahay waxaan ka baryay ayuu dhahay in xumaanta iga leexiyo kadib waxaan bilaabay inaan istikfaarsado iyo qiyaamuleyl inaan la imaado. alxamdulilah ilaahayna waxa uu i dareensiiyey macaanka iimaanka iyo khayrka iyo wanaagga macaasidina ilaahay xaggeedii uu iga soo leexiyey. ilaahay yaa mahad iskale. qisadan waxaa ka sheekeynaysa maamadan waxa ay leedahay waxaa laygu lahaa ijaarkii guriga waxay tiri maalina kuma ogeyn ninka gurigana aad ayuu noogu soo noqonayay waxayna ahaayeen ay dhahday ilmahayga ilmo aytaam ama masaaki oo agoon ah mana aan haysanin meel aan ka keenayno balse waxay dhahday alxamdulilah waxaa ilaahayna siiyay ayay dhahday meel aan u cararno iyo wax yacni haddii aan sameyno ilaahay noo fududeynaa umuurteena oo ah istikfaarta. waxay dhahday markuu ninkii ugu soo noqday maalin walbeento maalinba maalinta ku dambeysa aan sii ballaminayo ayaa waxay dhahday waxaan bilaabay inaan istikfaarsado istikfaartii ayaan ku celcelinaya habeenkii ilaa waaga uu baryay. waxay dhahday subaxdii markii aan jikada galay ayaa waxaan arkay dhahday weel yar oo hadda ka hor aan ku qariyay lacagtaas oo weliba dhammeed inta ijaarkeena ahaa. ilaahay yaa mahad iskale mar walbana yaqiintu waa aad iyo aad shay u muhiima ayay dhahday. qisadeena xigtana waxaa ka sheekeynayso gabadhan waxay leedahay cajaa'ibta istikfaarta waa wax aad iyo aad yacni aniga iga yaabgeliyay ayay dhahday. waxa ay asiibay arrin aad iyo aad u weyn qof yacni iga qaadi karta arrinkaas iyo culayskaas iyo mushkiladaas ma aysan jirin ilaa ilaahay moogiye. waxaan laazimayay dhahday inaan istikfaarsado xilliga saxarka ama suxuurta ka hor 1 saac salaada subax ka hor ah. waxay tiri iyo waxaan la imaaday qiyaamuleyl alxamdulilah ilaahay yaa mahad iskale. waxay dhahday maalmo yaroo kooban kadib arrinteedii waxay noqotay si wanaagsan alxamdulilah. qisadeena xigta ee laga arkay istikfaarta waxaa ka sheekeynaysa gabadhan waxay tiri waxaana qof la dulmiyey ninkaygana wuxuu rabay ayay dhahday inuu ifuro dadka dhanna waxay dhahayeen malihid rajo kaleento oo damba malihid waa lagu furayaa rajo ma jirto ayay dhahayeen ayay dhahday oo yacni dadka dhan waxay iga noqdeen dad oo didigayga ama dad iga soo horjeeda oo mucaaradkayga ah. waxay tiri allah subxaanahu watacaala iridiisa ma oodna ah. waxay dhahday ilaahay aan u cararay waxaana bilaabay inaan istikfaarsado duco ilaahayna aan u sheegto arrimahayga iyo mushkiladaha ay haysta inuu iga xaliyo reerkayga iyo arrinkaygana ii hagaajiyo ayaan ilaahay ka baryayay ayay dhahday ninkayga qalbadiisana in ilaahay ii soo dabciyo.
waxay dhahday alxamdulilaah ilaahay ayaa mahad iskale. Hadda yacni waan isku soo noqonay aniga ninkeygii. Awal waxa uu go-aan ku gaaray ayuu dhahay inuu ifuro oo yacni kala tagno reerkeena burburo. Alxamdulilaah hadda waxaan nahay reer isku soo noqday gurigeenana dhaqano alxamdulilaah. Waxayna dhahday arrimahayga culeyska laga dhigayay oo rajo beelka laga muujinayay ee dhahday heerka furiin la gaarsiiyay ilaahay wuxuu iigu fududeeyay oo reerkeena farxadeena iyo reereynteeda dib iigu soo celiyay istighfaar iyo duco aan la imaaday ee dhahday. Tan xigta istighfaarta waxaa ka sheekeynaysa gabadhan waxa ay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxay tiri waxaan lahaa wiil aan wada soconay ayaa jiray ee dhahday wiilkii ayaan khilaaf yar ayaan dhex imaaday waana iga gaabsaday ee dhahday oo ilamo oo hadlaynin muddo 3 bilood ah ayuu shib iga ahaa ee dhahday. anigana aad ayaan u jeclaay oo hadalkiisa kama maarmin oo waxaan ahaa qof yacni ku tashanayso mustaqbalka ninkii guursan doonto inuu noqon doono ayaan ku tashanaya ee dhahday wiilkaas. balse asaga laga yaabo in agtiisa ku weyneen waxay dhahday markii wax yar khilaafkana dhex imaaday buu iga gaabsaday ayay dhahday. waxaan bilaabay ayay dhahday oo internetka aan ka raadiyay yacni arrimahayga iyo culeysyadayda iyo walwalka waxaan ku xalin karo waxaan arkay ayay dhahday istighfaartii ayaan bilaabay ayay dhahday. asagana 3 bilood ayuu sii maqan yahay. waxay dhahday markaa muddo 2 isbuuc aan akhrinayay waaba taleefankiisa oo ii soo dhacay asagoo cudur daaranayo iga codsanayo inaan isku soo noqono sida awal ahayn iyo si ka fiicanna aan isku noqono ayuu iga codsanayay ee dhahday. alxamdulilaah ilaahay mahad iskale. waxaan ku helay ayay dhahday inuu ii soo noqday. waxay ku suurta gashay istighfaarta ayay leedahay ilaahay baan ku dhaaranayaa macnaha aad ayaan u faraxsanahay ayay dhahday mana aaminsani arrinta sida fudud ee ku dhacday balse ilaahay subxaanahu watacaala waa mid wax kasteenta awoodo. waxay dhahday kun fayakuun ilaahay inuu yiraahdo unbaa wax kastaba ka xigo iyo inaad baryo la imaato iyo ilaahay tala saarasho yaqiin inaad istighfaarsato insha Allah guusha wadada guusha waa istighfaarta. gabadhan kalena waxay leedahay alxamdulilaah ilaahay mahad iskale waxaan ka helay istighfaarta raaxo arrimahayga oo ii yacni umuurtayda ii fududaatay isaaq barakadii waqtiga oo ii barakoobay. waxay dhahday iimaan fara badan yaqiin waxa aan ka helay ma aha mid la qiyaasi kara ayay dhahday alxamdulilaah. waxay tiri waxaan aad iyo aad ugu dadaalaa in aan badiyo oon mar walba iyo maalin walba aan kasii badiyo intii horeento alxamdulilaah istighfaarta iyo alla bariga waxaan saas dhan ugu badiyo oon ugu dadaalana waa faa'iidooyinka aan ka helay oo la koobi karin. qisadeena xigtana waxaa ka sheekeynaysa gabar waxa ay leedahay waxaa jirtay gabar saaxiibaday ah ayada iyo ninkeeda aad iyo aad ayay isugu dhib qabeen heer ee xitaa yacni gabadhii saaxiibteed ay ku fikiraysay inay dhahdo ninkan iska kayfur laakiin waxay dhahday waxay u haysay 2 ubad ah oo gabdho ah waxaan ugu nasteexiyay oo ku waaniyay ayay dhahday inaysan yacni iska furin ninkeeda oo reerkeeda ay dhaqato balse ay bilowdo istighfaarta sabarkan ay aad iyo aad u badiso ayaan kula taliyay ayay dhahday. waxay tiri gabadhii ilaahay waa waafajiyay yacni taladeeda inay qaadato istighfaartan ay bilaabato. marka waxay dhahday in muddo aniga iyadii maan is arkin oo yacni waan adduunyo una kala mashquulisay maalmaha kamid ah waqtiga markuu waqti dheer ka soo wareegay ayaan WhatsApp-ka isku aragnay ayay dhahday. waxaan weydiiyay arrintii bal xagee ku dambeysay ayaan dhahday arrintii ma idin xalismatay adi iyo zoojkaagii. waxay tiri alxamdulilaah waaba ninkaygu isbedelay markii aan bilaabay istighfaarta waaba ninkii oo aanan ahayn ninkii hore subxaan allah aad iyo aad ayaan ula cajabay ayay dhahday. ninkiiba ma aha ninkii horeento waa nin ka fikirayo mustaqbalka gabdhihiisa maxaan qabanaa maxaan barnaa maxaan sameynaa see waxyeelnaa ani iyo gabdhihiisa waxayba dhahdayba waxa uu nagu noqday hadda iyo kuwa dad isku cusub oo kaleento koolkoolin iyo kashla hadda cusub ayuu noo bilaabay ayay dhahday. alxamdulilaah ilaahay yaa mahad iskale. faa'iidadaasna waxaan ku gaaray waxay ku gaartay ayay dhahday saaxiibadayda istighfaartii ay la imaatay iyo taladii ay qaadatay alxamdulilaah. gabadhana waxay leedahay waxa ay haystay culays maaliyadeed waxaan ahay arday yacni jaamacadda sanadkan dadkay geli lahaa ee ahay laakiin ma aan haysanin qarashaadka asaga bixin lahay. alxamdulilaah istighfaarta ayaan aad iyo aad u xoojiyay ayay dhahday bishaas. markii aan muddo waday waxaan wada sheekaysanay wiil ka mid ah dadka yacni iska ladan ee magaalada waxaana isiiyay ayay dhahday minxa waxbarasho oo jaamacadeed. alxamdulilaah nin la yaab la ayuu ahaa ilaahayaas iga soo qaaday waxaana ku helay ayay dhahday fadligaas istighfaarta. qisadana waxaa ka sheekeynaya wiil waxa uu leeyahay
waxaan joogteeyey istikfaarta maalintiina waxaan akhrin jiray 1000 mar ayuu dhahay sababtoo ah waxay u adkeed shaqada aan ka shaqeeyo waxaana yareed ayuu dhahay qarashaadka aan ka qaadanayo ilaahay waxaan ka codsaday in irsaaqada ii waasiciyo shaqada shaqo ka qayb qabtana iiga sahla ayuu dhahay alxamdulillaah markaan muddo waday alxamdulillaah ilaahay xaaladeydu wuu isbedel ayuu ku sameeyey shaqadii shaqo ka wanaagsan ayaan helay mushaarka wanaagsan oo ka يعني aad iyo aad uga wanaagsan ayaa helay shaqada hore waxaan ku nacay ayuu dhahay waxay ahayd shaqo aad culus waxaan ka helayn aad iyo yareed laakiin hadda alxamdulillaah shaqadeyda iyo wuxuu dhahay way isku dhigmaan iyo mushaarkeyga alxamdulillaah waliba waxaan qabanayo waxay tahay wax basiid ah iyo mushaarka aan helaa aad u fara badan istikfaarta ayaan ku helay oo haddana aad iyo aad ayaan u sii badinaya intaas in ka badan in Ilaahay ugu siiyana waa ku rajaynayaa biidni raxmaan qisadan kalena waxaa ka sheekeynaysa waa gabar waxa ay leedahay waxaan ahaa gabar weyn oo reerkoodii ku daahday sababtoo ah waxay dhahday guurka ayaa iga soo daahay oo ma aanan haysanin nin kasteento oo guursan maagan waxa uu sameynayay ay dhahday doonimaadka ayuu sameynayay kadibna ballantii wuu nooga baxayay asiga oo arrintii guurka aan dhammaystirin ayuu ka baxayay ay dhahday hooyadii aad ila walwashay ayay dhahday waxay bilowday markii dambeento inay istikfaarsato waliba iyadoo ii niyeysanaysa guurkeyga waxa ay akhrin jirtay ay dhahday astaghfirullah rabbi wa atuubu ilayh yaa rabbi irzuqnii mithla ma razaqta al-anbiyaa زكريا وإبراهيم بعد سنوات من الحرمان يا رحمن يا رحيم أيكو العلن جرت أي هذه الحمد لله مركي إن مدئي ودي إن يساس واستغفار سته إلهي سبحانه وتعالى يعني وهرق لي أرنتي دي ويل بايسود دونتي آدي آد ومقعلا وشرف بدن waxay dhahday doonimaadkii kadib guur ayuu noo dhigay haddana waxaan nahay dad yani reer leh oo aad isugu faraxsan sida inay muddo zaman is yaqaaneen oo kaleento ilaahay ayaa mahad iska leh waxay dhahday waxaan fadligaas oo dhan ku helnay istikfaartii ee hooyadii istikfaarsatay jazaheeda janno Allah ka dhigay ayay leedahay aamiin walaalaha qaaliga ah qisaskeeni maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa biidni raxmaan haddaa halkan nala soo gaartay aad iyo aad u mahadsantahay jazaaka allahu khayran fi axsani aljazaa ayaan ku leenahay waxaan leenahay alxamdulilah ilaahay mahadooda dhan u sugnaatay maalin kaleenta iyo waqti kale fursad noo siiyo inaan cibaadaysano ilaahay ayaa mar walbeento mahadii shukri u sugnaatay ilaahay nimcooyinka uuna siiyaa noo siyaadiyo gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo toobata nasuuxata qabla almowt allahna siiyo dambi dhaaf dambigeena kii hore iyo kii dambi yari mid weynba allah noo dhaafo acmaasheena yare wanaagsan samaysanayna mid la aqbalo allah ka yeelo biidni raxmaan waalidiinteena ilaahay u naxariisto sidii noo barbaariyeen anagoo yar oo inoogu naxariisteen ilaahay adduun iyo aakhiraba ha ugu naxariisto allahumma aamiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa in bugtadeena iyo baahideena bini aadanka uu tusin gacanteenana tii sarreysa ay noqoto aamiinteena iyo aamiinta malaa'igtana ilaahay kulmiyo biidni raxmaan muraadkeena iyo muraadka muslimiinta allah sahlo inta naga xanuunsan allah noo caafiyo inteena caafimaadka qabta allah noo siyaadiyo awlaad allah noo barakeeyo intaan awlaad haysanin awlaad baariyaal saalixiin allah siiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa intii guur la-aan guur xalaala inuu sii gabdhay iyo wiilalba inta deemaysan dhammaan allah naga gudo deemaheena iyo muraadyadeena allah loo sahlo biidni raxmaan inta shaqo la-aan shaqo qabta allahna siiyo inta ilaahay waxaan weydiisanaynaa culays iyo kurba saaran tahay ilaahay culayskii kurbadaha naga dulqaado faraj khayr qabo iyo farxad iyo reereen iyo nimco iyo barwaaqo ilaahana siiyo adduunyada ayada ayaan lagu waareynine balse mar walba inaan meel sare iyo heer sare iska joogno waan jecelnahay sababtoo ah wayna wanaagsan tahay almu'minu alqawiyu khayru min almu'min aldaciif ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhahay mar walba inaan ahaano qof muslin ah oo yacni meel walba ka dhammaystiran oo dhinac walbeenta arrimihiisa uga dhan yihiin ahaan aad iyo aad ay wanaagsan tahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu quluubteena khayrka ku xasiliyo allahuma yaa muqallib alquluub thabbit quluubana calaa diinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا ودن بدافو رسولك معيسى هانغلق بإذن الرحمن كوي جنات الفردوس الأعلى كل من الله نغيله يا رب آمين مراد كيني مراد مسلمين على سهل أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.